waxa ay sugayaan taageerayaasha kubadda cagtu ciyaarta El Clasico ee u dhaxaysa kooxaha Real Madrid iyo Barcelona. guutada macallin Ancelotti oo isku dayaysa inay xilli ciyaareedkan burburiyaan wixii ka hor imaada ayaa la kulmi doonta ragga soo kacaya ee macallin Xavi, kaas oo garabka saartay soo celinta Barcelonadii ay taageerayaashu yaqaaneen kadib markii uu ku tiirsaday da'yarta kooxda sida Gavi, Pedri, Torres iyo la soo wareegidda ciyaartoy cusub oo awood leh sida Adama Traore iyo Aubameyang. kooxda reer Catalonia ciyaartii ugu dambeysay ee ay la ciyaaraan Real Madrid horyaalka La Liga waxaa garoonkooda looga badiyay 2-1 xilligaas oo uu watay tababarihii hore ee reer Holland Ronald Koeman. intii uu Xavi watay waxa ay ku dhawaatay kooxda Barcelona in ay ka dheeraato guuldarrada El Clasico, taas oo ahayd semifinaalkii Super Cup-kii Spain ee lagu qabtay waddanka Sacuudiga, balse qaninyadii Federico Valverde ayaa kooxda Real Madrid guusha ugu hanaysay natiijada 3-2 kadib markii ay ka soo wareegtay 1113 maalmood guushii ugu dambeysay ee ay kooxda Barcelona ka gaadho kulanka El Clasico iyagoo oo laga badiyay 5 ciyaarood halka ay baraajiyeen 1 kulan. waxa ay rajaynayaan wiilasha Xavi in ay soo afjaraan taxanaha guuldarrada ah ee haysta kooxda kulanka El Clasico-da. waxa ayna rabaan inay Real Madrid kaga badiyaan hoygooda waxa ay ahayd markii ugu dambeysay ee Barcelona ku badisay garoonka Santiago Bernabeu labadii bishii saddexaad sanadii 2019 xilligaas oo uu watay tababarihii hore ee Ernesto Valverde, balse kooxda reer Catalonia ayaa kulanka ku soo gali doonta iyagoo ay ka maqan yihiin ciyaartooy muhiim ah, waxaana ugu cadcad ciyaartooyda ka maqan kooxda Barcelona kulanka El Clasico Sergio Dest oo ay sheegtay kooxda Barcelona dhaawiciisa, halka ay sii socon doonto maqnaashihii Ansu Fati. dhinaca kale kooxda Real Madrid ee lagu ciyaari doono garoonkeeda ee dhawaan dib uga soo kacday remontadadii kooxda Paris ee Champions League ayaa ciyaarta soo gali doonta iyagoo oo madaxa kor u qaadaya kadib markii ay la kaliyoobeen hoggaanka horyaalka Spain ee La Liga. tababare Ancelotti ayaa xilli ciyaareedkan ciyaari doona El Clasico-diisii saddexaad kadib markii uu soo badiyay labadii El Clasico ee hore, balse kooxda Real Madrid ayaa dhib kala kulmi doonta weerarka iyo difaacaba ciyaarta Axadda. waxaa ka maqnaan doona daafaca bidix ee Ferland Mendy iyo ciyaartoyga ugu muhiimsanaa kooxda Real Madrid waayihii u dambeeyay ee Karim Benzema, iyada oo labadoodaba ay dhaawac ka soo gaadhay kulanka ugu dambeeyay ee kooxda Mallorca ay la ciyaaraysay. maqnaashaha Benzema ayaa Ancelotti ku ridi doona wareer doorashada ciyaartoygii bedeli lahaa Benzema, waxaana ugu cadcad ciyaartoyda bedelaysa Benzema Gareth Bale, Hazard iyo Luka Jovic. haddaba adiga ahaan kooxdee ayaad isleedahay way badinaysaa, kooxdee si ay saamayn doontaa maqnaanshaha ciyaartoydu?